السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل سؤال كويدية maxaad samayn lahayd haddii ay arrintan oo kale kugu dhici lahayd? Tolow arrintu waa maxay? Yaanan ku daahinin ila soco. waxay ahayd tuulo fisqigu iyo fasahaadku ku faafay dadkeeduna ahaayeen xumaan falayaal ku xididaystay falidda xumaanta. waa meel cagta la saaray wadadii hoogga iyo halaaga dadkeedoo idilna wanaagga way ka leexdeen oo xumaantii u weecdeen dhagahooduna waa diideen inay maqlaan samaha oo xumaan bay saldhigteen. tuuladaasi sidaasi ah ayuu ninkani u adkaysan waayey wuxuuna arkay inay tahay meel uu ka soo socdo ciqaab oo haddaan warkiisa la dhagaysanayn taladiisana la qaadanin buu is yiri tolow iskaga tag meeshan yaan dadkan halaagooda adigana lagugu darine. waa uu soo dhaqaaqay wuxuu ahaa qof ilaahay ku xiran cibaado badan dadka wanaagga u sheegi jiray balse isaga warkiisa waa la diiday in la qaato oo cidna dheg jalaq uma siin. goor ay dhowdahay salaadii casir ayuu ka soo hayaamay halkii uu ka degnaa tuuladii hadaf la'aantu haraysay oo wuxuu soo socdaba waxaa la gaaray xilligii salaada casir. meel aan geeda lahayn saxarana u eg oo bannaan ah ayuu soo gaaray. salaadii duhur baa u dhowrneede wuxuu galay salaadii casir. dhowr daqiiqo kadib isagoo salaadii ku dhex jira ayaa waxaa hortiisa ka soo muuqday mas aad u weyn. dabcan qofku waa binu aadam oo fikirro badan ayaa maskaxdiisii ku soo faafay kuwaasoo fariintoodu ahayd war meesha misaga fiigtaa oo ma ka fakataa. balse taasi muu falin salaadiisa ayuu sii watay isagoo maska eegaya. maskii sida uu u soo socday markuu u soo dhawaaday meesha uu ku sujuudi lahaa ayuu maskii istaagay. ninkii wuxuu is yiri salaada ha ka bixin oo wuxuu is yiri rabbiga weligaa waad ku xirneed ee ha ka bixin salaada oo dhammaystiro. salaadii ayuu sii watay oo intii u dhimaneed ayuu dhammaystiray. saamaskii sooma dhaqaaqine inta dib u jeestay ayuu iska tegay. ninkiina halkii ayuu socodkiisa ka sii watay bal si uu u tago meel meeshan ka qeyr badan oo dadkoodu wanaagga ay weheshadaan. haddaba qof kasta oo muslima waxaa looga baahan yahay haddii uu arko xumaha inuu reebo waa haddii uu awoodo. haddii uu gacanta ku reebi waayo carabka ayuu ku reebayaa oo kala hadlayaa dadka. haddii taa anfici wayso qalbiga ayuu ka nacayaa ilaa wax kale ma fali karee. balse haddii meesha xumaantu ka badato oo adiguna aadan waxba ka tari karin dhulka ilaahay waa waasic ee iskaga tag oo raadi meel wanaaggu hoggaanka hayo xumaantana laga weecday. haddaba ugu dambayn walaalkaygow iyo walaashayday waxaan idin leeyahay wanaagga u heeli oo xumaanta ka weeco.